yaa ka dulmi badan yaa ka saqajaansan ruuxii muxuu ahay masaajidku xadgudbay. dagaalka al-shabaab ayaa u muuqda mid u xubsiibta duuminta goobaha cibaadada haddii si kale loo dhigana la dagaalanka kitaabka alleh. masaajidka sunna oo ku yaala meel ku dhow isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho sabtidii lasoo dhaafay ayaa iyadoo loo taagan yahay salaadii duhur ee muslimiinta ku waajibtay waxay ku dumiyeen qarax kuna laayeen dadkii halkaas ku cibaadaysanayay. marka aad dusha sare ka eegto waxaa muuqanaya burburka masaajidka alle soo gaaray, sidoo kale guryo ka hoos dhisnaa masaajidka oo dad rayida ay degnaayeen ayaa halkaasi iyagana ku basbeelay. argagixisada ma eegaan naxariista islaamka iyo diintoodaba. aayadaha qur-aanka kariimka iyo axaadiista nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa haatee waxaa lagu xarimay dhibaataynta beydka alleh ama masaajidka, laakiin al-shabaab waxay u bareereen dagaalka ay ku hayaan diinteenna islaamka. waxaan markaa u caddaynaynaa ummadda falalka caynkaana oo saan u dhacay dadka sameeyey oo sheeganaya inay yihiin mujaahidiin. hadda mujaahid ruux jihaadaya ma masaajidow jebiyaa, ma dad masaakiina howlaayaa, ma dadka abriyada oo berimageydada iyou dilaa? idinka laftirkiinaba ka jawaabi kara. marka ma dilo ruux muslima, masaajid ma baaba'sho ruux muslimahoo mujaahida, xataa kaan mujaahidka ahayn oo iska socda oo faasiqa oo gaalka masaajid ma taabto. gaaladu masaajidaha ma taabato, muslimiintuna kiniisadaha ma taabato, lama taabto. maxaa yeelay in kiniisadaha la taaban diinta islaamkaa ku dhisan, inaan baadiriyaasha la dilin, inaan culummada la dilin, inaan masaajidaha aan la baabi'in. intaasoo dhan diinta islaamka ayaa ku dhisan. waxyaalaha muxaramaadka ayay ka mid yihiin. burburka qaraxa argagixisada ay ku baabi'iyeen goobo ganacsi iyo guryo ay dad rayid leeyihiin ayaa muuqanaya, mana awoodaan dadkaasi qaar in ay dib u dhistaan. masaajid ka dhisnaa xarumaha degmooyinka howlwadaaga hodan iyo deegaanka sabiid oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayay si ku talagala al-shabaab qaraxyo ugu dumiyeen, islamarkaana ugu qubeen dhiig dad muslimiin ah. dhammaadkii bishii ramadaan ee lasoo dhaafay, labadoon soomaaliyeed oo ku jira ictikaaf islamarkaana aqrinaya qur-aanka eebbe ayay madaxa ka toogteen, xabadda kama reebin oo kitaabka qur-aankana waa ay la dhaceen. argagixisada al-shabaab ma jihaadiyiin baa mase diinla dirar soo ifbaxday oo u baahan in laga difaaco diinteenna raxmadda u taagan?